السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لما دقيستي الكسر دوادة برنامج كيني سراع في صومالي وآلا كبرتين شان شدينا كالسن تيفي حرمتي ذا مقالة لنا وحان لدين لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادة برنامج كي أنا بسم الله وحين وضل إنه واقعي به إني برنامج كيني inagoo maanta gartii yara joojinayna oo bal hadda yara gelaynaa waxaan marka hore ka codsanayaa maanta telefoonadu way badnaanayaan waxaanu doonaynaa bal in badan baynu hor fadhinaa in aanu ka dhergno feedbackiina inta wax nagu soo kordhinaysa iyo intana dhaliilaysa laakiin waxaan jeclaan lahaa fadlan aynu ilaalino anshaxa iyo akhlaaqaadka telefoonka waanu idin furaynaa haddii alla yiraahdo mar dhowba wax yar un baynu doonaynaa inaynu galno كل ما حنقول إحنا هذه ترى واحد هذا الوقت قوم بينقول هذا مركا واحد بالمان تقلينا هذا إير أو شيء كذا غنكيا كدي بواحد نقلينا بالمان صدا يسمين تيدي دعدة دي اسمه دي التركي كدي بنحن نقلينا تلفون دينا هذين ما أنت لو تم صدا نري أي نمريني qaybtii mooyaha iyo geeraarkii oo aynu nidhahay hawleedkana waxa u badan dumar baa iska leh oo hawshooda ay ku qabanayeen raggu hees hawlooda way leeyihiin laakiin de iyagu sahan iyo waraabka xoolaha iyo raaca xoolaha iyo arrimahan guriga oo dhan hawshiisa faraha badan la haweenka qabta haweenkana waa loo meel dayin jiray de guurkooda taa intaynaan u gelin taa guurka haweenka sida loogu soo meel daydo bal aynu eegno dhacdada ay leedahay waxaynu nidhi intaad qalin iyo warqadaan soo qaado haddayna imika aan idhaahdo waxa aan u sheeka tegay suuqii saaxiibadii baa shaah ii shubay waanu iska soo shactiraynaynay mararka qaarkood waa shallaadaynay sheekooyin khataraanu wadnay nacnacda haddaan gurada hees noqon mayso oon sagaaluun ka eego idhahdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa sagaal shaqal taasi waa sagaal shaqal sidaa maansa kuma timaada dee maansa sagaalka shaqal uma hees ciyaareed waxa u dhacdaa sagaalay 10ley 11ley iyo 12ley aynu geli doonaa taa waxyaabahan ay haweenku lahaayeen bay raggii galeen 4 sanadood iyo badbaanu halkaa ka soo sheegay wallahi war ka daayay waxa ceeb ku ahaan jirtay ninku inuu ka maasoodo bad dumarku leeyahay ilaa wax qasimayne way dabar go'eeniyo way baabeeniyo war may dabar go'inay way yaalaan adiga maxaa ku geeyay markaasaad ninkii wixii dumarka intuu galay buu carsheeyeen oo ay ka dileen qaabkeedii markaasuu ka oranayaa imika heesaha ku soo ururay badda maqasha ugu badan 7 shaqal bay tirinayaan maqashu 7 shaqal maaha waxaynu niri marka ugu horeysa waa la aleentiriyaa ama waa la shaqal tiriyaa heesaha qaar hees ciyaareedka waa la shaqal tiriyaa gabayga hoojiskiisa waa la shaqal tiriyaa hooriskiisana waa la caleen tiriyaa hees hawleed oo dhanna waa la caleen tiriyaa shaqalka dheer kow laba oran maysid halka uu shaqalka dheeri ku jirana waa inaad shaqalka dheer ka dhigtaa halku mid gaabani ku jirana waa inaad mid gaaban ka dhigtaa baa laasima maaha inaad tiraahdo waa 7 waxaa jira heesa maqasha ku soo aruuray oo beydna qaldan yihiin beydnayna sax yihiin 7 bay ka raaceen ragga maxaa u geeyay marka ugu horeysay maqasha maqal bay raacayeen de maqal baa lagu raaci jiray nolol maalmeedkii dumarka ay ahaydeen
ninku gabay iyo geeraar iyo hees buu lahaa baarcaddaha ciyaar soomaaliga hadda hees ciyaareedka ah oo ay hablaha wadaagaan buu dee ninku markuu soo guuxayo marka dambena gabaya geeraar buu lahaa marka dambena wuu halgaadi jiray dee waxaan muu geli jirin toddobaateenniyadii bay dee soo bilaabatay markii qalin buugga la qaatay maase qalin iyo warqad loo qaataana may jiri jirin dee markaynu run ku hadlayno ilaa wixii waa dhaqankayga iyo waa inaan run ka sheegaayo ma aha inaynu waxaynu iminka qoladan aynu wadamadan aynu joognaabaa ninku isagoo qaldan baanu ninkan kale ku odhan karayna waxa ay isku sabjaga yihiin waad qaldan tahay wuxuu isleeyahay berito markaad qaldanto ha kuu xil qariyo war socon maysa waxaas iyo qalin iyo warqadi may jiri jirin halkanaa laga tirin jiray waa la humaag raaci jiray gabayaloo tis qaadaa la keeni jiray 300 beyd iyo 400 beyd leysma daba dhigi jirin inta qalin iyo warqad la qaata dee hal la ogolaado anigu ma lihi waa qalad haba la ogolaado shuruucdii ha raacdo laakiin waa wax cusub ay bika yimidii waxaynu dhaqanka u lahayn maaha horena looma arki jirin dee nin gaboobay oo uu ku dhacay maanguran mooyaane nin maase uu tiriyey dee yidhaahda garan maayo warqadii qalinkaan ku qoremeeyo oo dabeedna halkan ka akhriyaa waaba tirisay sidaad u ilowdaa laakiin inuu yidhaahdo bal hadda yar sug oo warqad ka akhriyo kumay imanin dee humaag waa humaag la doontay humaag soo doontay maaha humaagyada dee qolooyinkan dambe way daba cararaan dee humaag waa inuu kusoo doontaa kuu yimaadaa tirisaa waad qaybaysaa markaa laakiin maansaan tiriyey garanna maayo waa inaan warqadda ka akhriya oo aniga isaga markaa aniga soo qaybay baaba dhaame hadda maan tirin waan soo qaybay korkaan ka haya laakiin ninkii tiriyey maba hayo maxay maanse ku tahay markaa marka maqasho waxaynu nidhi waa inay ku bilaabantaa shaqal gaaban iyo shaqal gaaban iyo shaqal dheer waa khasab intaasi waayo waa inta dhacdada keenaysa maqale waray ma lagu warramay in cali la dilay oo cismaan la dilay shubano darban naylaha duduuc oo soo dabal oo xaqi بيت والله مقالة هيستني مكانتري وهيست لقى صوت صالة قاعدنا يعتري سوى ولا ما هيو إلا الدنيا بيد واحد يشتها وقت يفرق بقولال سنة وهل كان لقى صوت قاعدنا يتحاسون بالله راعي الدعدة ده هيس والبكو الدعدة ده راعي وين نحينا ننت دواتك هي أمس ديتك هي أمس جاشك هي أمس 2000 كي وحي كده مي هيستري وما راعي ده واحد دقن ولا حال لبعتن كون يبقولال كون سنوات كهر واحد دقن سوتري وراعي ما وين انتهى ولا راعي وين وسوي تراعي هدو قلديه وقلديه وي سبحانك يا عديم عيد كنت وحوين وح أمدلين هعلق مرها لكنيو هدو قلدين وقلدنتي ولا يلا ده وينو صح كينا حتى ستر هذا ود كوسي سعنا سوا سدا إما كينا حيستيه هسيه النقطة إنه سجال تري ورسجال ما ترينا يدي دمر كان هاي دمر جبيانه ويشيلانه أداي أدور رجعني ماذا عادي كصوب وحوي ورجل الحاكم دي ما كينا يا حتى درجة السلسلة دي وهيسون هيس عيارات waxaan imika jiiftada la yiraahdo jiifta dib jiri jirin waxa bari dhaweydun baan la maqlay jiiftada waxa la yiraahdo hore haduu deeska yare la caabayo uu geeraari jiray hadii kale uu gabi jiray silsilad gabayo dhalinyarada bay wado maynaan arag wax walba gabay baynu ahnaa de gabay maaha waxa la waxa silsilad soconaysa iska hees ciyaareen gabay noloshii kale ka sheekeynaya maynaan arag hees noloshii kale ka sheekeynaya maynaan arag jacayluun baa caynkan iyo gabar iyo nin gabadhiisa u heesay xageenu ku aragnay nin gabadhiisa intuu adduunyada way ka xishoon jiray halkii hore halaga dumarku inay yiraahdaan muxuu u diidiyaa dhaqan may ahaan jirin waa wax cusub ee la idin baray gabadha ammaanteedu halkan ay ku jirtaa halkan kuma jirto waa inay halkan ahaataa gabadha ammaanteedu sidee kuula weynta waa inay halkan kuugu jirtaa halkan kuugu jirtaa waxaan sheegayaa waa jacayl hindi subxaanaka ya cadiim jacaylkii hindigu weeyay dee waan ku jeclay buuja waan ku jeclahay dii weeyaan duniyada hooda jaahe ee afka ahaa gabadha xaaska ah ee aan qabo aan jecelahay halkan aan ku hayo halkan iyo halkan kalbay ku jirtaa ay ku qafilan tahay waxaan dadka ka tusaya waa inaan iyada tusaa dadka ixtiraamkeedii iyo sharafteedii iyo gobonnimadeedaan tusayaa laakiin jacaylka aan u qabo gabadheedaan dee tusayaa mahayna ninka la soo yidhaahdo magaranaysaa sababka ay baflayo waxaynu dhaqan u lahayn baan ka hadlayaa waxaan imika yimi ka hadli mayno maansadu markaa way noqotaa maqalay warlaay saddexdaa aleene hore way noqdaan mid gaaban iyo mid gaaban iyo mid dheer qaybtaa dambe ee maqashu way noqotaa saddex gaaban ama mid dheer iyo mid gaaban waxa lagu siiyay flexibility adiga haddaba mar baa imanaysa shaqalkaa hore iyo shaqalkaa hore ee gaaban inay noqdaan oo
ama shaqal dheer ay noqdaan ma walaalkaybaa ma walaalkaybaa wali hoose iyo walwaleed ka yimi markaad tidhaahdo falkaab baa halkaa ku jira aguuga ka yimi mar haddii falkii oo yimiya uu falkaab ku dhacay waxaa imanaya labada shaqal ee dambe soo socday hore inay mid dheer noqdaan oo ii warramay oo ii wargala falkiibaa waxaa ku dhacay falkaab aguuga waa markaa marka uu imanaya oo ii warramay oo ii wargala iskama imanayaan de waxani ila wax umadi sii dhigato farshaxanimaka iyo wax iminka duduucaysa maaha shan shaqaloo gaagaaban iyo mid dheer buu tirinaya masuuka odhaya waa maqaldee maaha waa 7 caleen 7 tiriyo waa 7 maaha bulukaadi waa la caleen tiriya kuwa lama shaqal tiriyo waxyaabaha dumarku ay ugu adagtay ragga wax isdhex yaryaaloo flexibility lagu siiyey maaha waa khasab inay dhacdada yeelataa heestina waa inay keentaa maqasha ahayd markaa dhalinyarada dambe oo dhan baa 7 ku wada wareegaya 7 oo markaasaa ninkaasaa 3 wuxuu tirinayaa 10 bayd iyo 10 bayd oo 7 ah oo isdhex yaalla oo geesir yaalla masaa loo leeyahay abwaan hebel ama abwaan baa magacan iska bilaqada noqday imika sharaf buu ahaan jiray darajo ahaan jiray maantana waa laga cararayaa de abwaan asii la sheegay la yiri nin baa heesimeeyo heestiiba wuxuu leeyahay niman kale oo wax tirtiriyay saaxiib yihiin oo si la toostoosiyeen waa heestiisii ugu horeysay way la toostoosiyeen markay la toostoosiyeen buu musqusha galay heestii bay qoreenoo hebel heesta waxaa curiyey hebel markaasuu yiri qalad weyn baa iga gashay maxaa dhacay masuuliyadda abwaan baa ka tagtay abwaan hebel ugu dhax heestii ugu horeeyay hadda la sameeyay subxaanaka ya caliim marka waxaad arkaysaa dee ma garanayo marka horta runtii waa inay heesta maqashi noqotaa shaqal gaaban shaqal dheer saddexda dambe waa inay noqdaan 3 gaagaaban ama mid dheer iyo mid gaaban waa intaa doqon raysayo waa bayd maqala roob yari u da-ay dee halkaas taasi way qaldan tahay lama raadiye way saxsan tahay taariikhda raac ma soconaysa eeg 2 jaban 3na waa sax waa maqashay laakiin 2 bayd baa jaban raxmad lulata oo laydu ay ruuxdo lagu reeyayo roob doon dhalo 3 baa qaldan waa badda maqasha heestaana raxmad lulata oo waa 5 gaagaaban iyo mid dheer baydkaasi maqal maaha laydu ay ruuxdo waa sax lagu reeyayo waa sax roob doon dhalo waa sax because roob halkaa maxaa shaqalkaa dheereeyey roob doon dhalo maxaa dheereeyey falkaab iyo falgarga aguga ayaa waxay ku dhaceen falkii lagu reeyayo lagu ayaa wuxuu ku dhacay rayskii in lagu reeyey roob doon dhalo markaasaa waxaa imanaya falkaabkii aguga ahaa shaqalkii dheeraa laakiin beydka koowaad waa qaldan yahay raxmad lulata oo maaha inaynu ka toolno waa inaynu sidan u eegnaa qaybtaa maqasha waynu u soo noqon doonaa waxa la mida oo ku dhow hees ciyaareedka dad ba waxay koonayaan mooyuhu waa 6 shaqal mid marka lagu daro waa maqashii mid shaqal kale marka lagu daro way hees carweedkii dee ma soconayso mooyuhu waa 4 caleen 6 shaqal maaha waa 4 caleen marka hore waa inaanu kala garanaa a e i o u waa 5 caleen oo gaagaaban
a e o una waa shan shaqal shan aleen ama shaqal oo dhaadheer a noqon maysa a de waa laba gaagaaban marka na ma ro waa afar aleen oo gaagaaban oo labadaasi dheer yihiin ka koowaad iyo ka saddexaad dhacdadaasay ku imanaysaa nood inaad tirahda waa tii mooyaha dee ma noqonayso lix aleen oo gaagaaban mooyihii waa la aleen tirinaya lama shaqal tirinayo markaa shaqal markaad ku dartay adaa ku darsaday dee magacu bixi cusub taydii maahe markaan leeyahay taydii waa tii soomaaliyeed dee maaha ile soomaalidu waa isku wada mid oo dhaqan baynu lahayn iyo maansaynu leenahay markaad imika eegto aniguba basray berigaan yaraa waan boodi jiro waan bari caddaa 7 iyo 8 bay ku dhacdaa haddaan damco inaan geliyo codka maqasha way isu imanaysaa maqalay warlay ma lagu warramay in cali la dilay aniguba basray berigaan yara way ka go'aysaa aniguba basray berigaan yara waan boodi jiro waan bari cadda shaqal dheeraada baa ku jira waa qaab caruureedkii heesaha tan ku imanaya qaybtan qaab caruureedka waa inagii soo sheegnay baldayooyada dadnaygu dhow dayweydayo darxumadan qabe nafsi lala dersaa damba beer malo aniguba basray berigan yara halkaasay maraysaa wan boodi jiro wan bari cadda halkaasay ku maraysaa waa xiisaha ku imanaya taa laakiin imika haddaan dhahda raxmad lulota oo laydhawaayo ruuxda lagu reeyey raxmad lulota way go-aysaa raxmad eg laakiin maata lagu reeyey roob doon dhalo ay ka taa way gelaysaa taasi waayo waa sax laakiin raxmad lulota raxmad lul halkana isqabanaysaa way ka soo go-aysaa sax noqon mayso dadka uruuraya isu tegay dhamaan ma ogaan karaan mooye isaga hadba waxaan arka way ka go-aysaa taasi beydkaasi waa qaldan anu ay cidla eri dhaman sidii ku ololaya waa badii maqasha laakiin beydad qaldan baa ku jira waa in la aleentiriyaa caawaynu heesayna kuley dee codxumadeeda iska dhegeysan doontaan laakiin de waxaan baan rabaa inaan wax ku sharxo codkayga ha eeginayo foolxumadayda labaduba way iskashadeen subxaanaka ya cadiim laakiin waxaynu eeginaa waxaynu ka hadlaynaa waxay yihiin anigu dee fanaan mihiyo waxa la nin faarax laanjeer la yidhaahdo ilaahay ha u naxariista ayaa berigii hore soomaalideenna dhaca geelu sharaf buu ahaaba tuuganimo muu ahayn xabaadh baaba loo bixiyey hebel geelu xabaadha waar waa dilaa weeyaan oo geelu dhacaa lama odhan geel buu xadaa geela dhiciddiisu dee iska xalaal bahin cabdigahayr faarax laanjeer waa kuwii dee iska magarasa akhrinumaan geel ahayn lama ammaanayna waa kuwii dee halkaa iska xalaalaystay dalkaa faarax laanjeero geel soo dhacay baa soo xabaaray baa lagu jeelkii hargeysa lagu xidho berigii ingiriisku joogo masuu nimankii qolka kula jiray buu wareysto xul niman tuugo aradag maxaa lagu xidhan markaasuu wallaahi jeeb baa nin kala baxay oo laygu soo xidhan suuriyaa arada maxaa lagu xidhan suuri dilo islaameed baan kiishad islaameed baan aradiguna masuu wan yar baan soo xaday oo waxaa arkay dee inaanu ninkan subaxii markii waagi baryay buu u tegay ninkii seer anigu dee nimanka lamid ma ihi buu yihi qolkii geela qolkii geela yani anigu dee kiishadii waxaan kuma soo saqajaamina geel baa soo xabaaray kuwan dee meel ha igula xidhin raggu say isu qabtaan isu raaci buu yihi aniga qolka geela igeeya ninkii ingiriis wuxuu waa ninkan qolka lees geeya buu yihi halkaa xabaa qoladii waxa lagu soo xabaaraha lagu xidho kale category bay noqdeen markaa imika anigu fulaan ma ihi xagga geela subxaanaka ya cadiim marka berigii hore markuu doonayo inuu dhaqankeeni inan guursado rag iyo dumar waa la ismaan gaali jiray waxaa la isku maangaadi jiray waxaad arkaysaa gabadha fikirkeeda waayo qofkan dadka yani waktigan imika aynu nool nahay waktiga hore waa kala laba dadka caqliga yar laba waxay ku oranayaan oh my goodness ciriiri bay ku jireen oh gosh sidanay ahaayeen waa qof riyoonaya qofkaas oo kale wakti waliba wuxuu leeyahay midh qiyaaskiisa noloshan imika aad ku nooshay dimuqraadiyadan yaree diinka saarista iyo waxyaabaha yaree lagu melmelay berigaa may oolina noloshii runta ahayd baa taallay
xayadii iyo sharaftii iyo xishoodkii baa yaalay quruxdii iyo milgihii bulshadaa yaalay akhlaaqdii iyo dhowrsanaantii ubadkaa yaalay kala dambayntii beeshaa taallay u faarumaysigii midqiyaaska noloshaa yaalay iminkana wixii oo dhan waxay noqdeen inuu duniyaa bahood kharaab hee هو بارد يدو ولا عصب دايما استريدada lugeynaysa bulsho nidaamsan baa taalo nidaam kale maantana halkan uu nin walba halkan aan shaqeynaysa ragiina caloosha shaqeynaya dumarkiina waxa shaqeynaya een subhanaka ya cadiim waxyaabahan imika fawaaxishka farabatay may jiri jirin habluhu marka ay yara weynaadaan in nasiibkoodu soo bixi waayo way heermi jireen waxa laga yaabaa imika marka dadka dhageysanaya heerin marka dadka dhalinyarada dambe loo sharxo inay raadaan oh my god waa embarrassing may ahayn xilligan muu ahayn inantan shahwaad iyo hamad baa rabbi ku abuuray mustaqbal dambe iyo reer iyo waxbay raadinaysaa halkaad adigu disco ka raadinayso iyo jaamacad iyo inaad shaqaysatay inaad nin cadaan ku dayato gabadh cadaan ama ninku nin cadaan ku daydo oo noloshaadii dhamayd bay shaarkaaga iyo dhaqankaaga intaad xayuusay aad isleedahay dhaqan kale u xidho u tabaalo talaabso may oolina tiirun tahay iyo dhaqankii milgaha iyo sharafta lahaabaa yaalay oo kiibay doonaysaa inay nolol maalmeedkii ka qayb gasho gabadhu oo aanay dee xaaraansan inay nin xalaala doonato illa waa qof bil aadam ilaahay shahwaad ku abuuray dibadna sifo wanaagsan bay u mari jirtay dee gabadhu heerunka eebmu ahan guurdoon buu ahaa imika watan gabadha intay jilibka ku dhigto kooraysa adiga iyo nina weli maarimi subhanaka ya cadiim waxaad ula yaabaysaa imika bay fawaaxish tahay gabadha ninkii iyadu saloolanaysa taasi ninima saloolanayna xalaal bay ilaahay la hortagaysay oo doonanaysay reerka ay u timaadaa gabadhaasi kama bixi jirin dhaqanka hadduu rag leeyahayna raggaas loo jiray waa mid u xula inantu reer bay astaysanaysaa iskama soconaysaa waxbaa lagu socdaa inna halkaas la tagi jiro gabadha la guursan jiro nolosha iyo guriga iyo reer iyo dhisi jirtay oo geesiyaal dhali jirtay waa nolosha ka qayb gashaa doonaysa inay dee sidan ku weynaato waa inay noloshii dee ka qayb gashaa bay doonaysaa inay u faarumaysaa bay doonaysaa mirqiyaaskeedii dee nololeed raggu teeda kale gabadhaha marka u yimaadaan gabadhu ninka way tijaabin jirtay ragguna way tijaabin jireen gabadha ninbaa aabihii u yimi wuxuu ku yidhi aabba waxaan doonaya inaan gabadh guursado aabihii baa yidhi bal namariga gabadha soo lugeeyeen oo gurigii gabadhu deganeed bay yimaadeen markaa wax ragga markay waayeen bay yiraahdeen ama rag ha joogo beesha ama uu joogin marti baan hogeedkii bay fadhiisteen oo markaa inantii yareed iyo inanka yar ayaa joogta waxaan soo neef baa loo nuugiriya waa la soo salooday dabeedna tii yareed baa iyadoo ordaysa u keentay saloolkan la keenay hilibkan solaygaa baan jeedaa hilibkan solaygaa hee la keenay macnuu wataa dabeedna waxay tidhi waanu raagno waa rag la-aan baa leh waanu soo raagno marka cuntadii tii yareed u keentay bay tihi waanu soo raagno inankii aabaheed bay u timi waxay tihi waanu soo raagno rag la-aan baa leh ilaa meesha ragma joogin gurigeed waa riyo oo ida la-aan baa leh dee hilibkan aanu idiin keenayna waa riyo oo xeradeedaba dee ida kuma jiraan waa saloyo waa lasoo saloyo riyo la-aan baa odayga inta uu iga buur warmiyadii baa masuul maya waa tii ka yarayd odaygii waa yaabay xigmadda meesha ku jirta bal hadda u fiirso ilaa berigii hore waxyaabahan imika laga shakiyo iyo mucjisaadkan iyo fawaaxishkan may jirin oo inantu family ladan haday ka dhalatay family-ga tarbiyadiisa ay lahayd inantu dhaqanka hooyadeed bay lahayd dhaqanka reerkooda ay lahayd dabeedna nin baa u imanaya masuulay wallahi halkaa inay action ay samaysay hablaha sibaa loo eegi jiray hebel masuulay inanta isiinkiisu baa inan baan ku dooran ku soo arkay wanaagsan oo masuulina u tagaya dadkani dad sharaf laba hayro karaamo laba dadkaas oo hayro waxa ilma kala eegleega aan la eegin quruxda iyo wanaagga iyo raganimada inanta oo intii diintu ku fasaxday baa lagu gali jiray deena tii weyneed baa timiyo waxay doonaysaa inay weelkii gurto waxay tiri hal naga hada xeradayada ariga ahayd in aan la ciday iyo in aan u ciday iyo in caris la laadisay
iyo intaa in dhigeeda way noqotay odaygii isagoo ugu dhan tahay inuu inantii eegata sida Allah hablahani odaygii intaanu u imanin bay halkaa ugu dhiibtayba waxay ahayd afar number oo code secret code u dhag taabatay intan ay hablahan yari garteen ay ku hadleen baaba ahba intaba dhaqanka iyo sharaftaba codeskiisa soo koobaysay imikana gabadhaada inta ku dibada ku oranaysa your father baa ku doonaya ama ilmaheedu ku oranaysa waa father of your father waa awowga oran yani waxyaabaha moogta ama inantaada ku oranaysa your mother weynidii iyo qiimihii baa lumay ninka weyni uu lahaa ayaa luntay yaa lumiyey bulshadan yar yari may lumin ta kale dhibaatada ah ninka weyni ku oranaya caruurtu way dhaqan habaabeen may dhaqan habaabeen caruur adigaa dhaqan habaabay markii aad la tumatay inan aad owl labaad u noqonayso ayaad inantii yareed weynidii ka dishay xaggaa ka eeg ha ka eegin inanta yari dhaqankan iyo halkan bedeshay markii awowgeedii labaad suuqa galay de weynidii way lumaysaa ilaa nin weyn bariga hore suuqa lagu meegana sharaf iyo karaama lagu ogaa karaamadii iyo sharaftii lagu ogaa markuu ninkii weynaa isagu iska xayuubiyey ilmihii yaraa dee arki maayo ku kori maayo sharaf iyo karaama halkan taala laakiin awowgii iyo suuqa habla yare reeriyanayo arkayaa dee odaygii isagaa lumiyey islaantiisiiba intuu ilaawey buu yihi 15 jir baan guursanaya waar waa ku sidee milgihii iyo sharafkii uu haweenku lahaa raggaa lumiyey haweenku may lumintoodii no nin cabdiraxmaan abees la yihahdaa gabay uu tiriyeyba waxaa ku jirtay inantani waxay joogtay Soomaaliya ragna waxay taqaanay nin jinsiyadda Soomaalida leh kaftankiisa iyo halka laga doorto ayay taqaanay David iyo Akuku iyo Makuku iyo Uhuhu oo maanta halkan jooga iyo hablahan yaa isbaray de adiga isbaray inantii ma aqooninayaa u keenay de adiga u keenay simple adiga galaaska la fariisiyo yiri de dhaqankiisa baro dabadna kaagi jilciyay adiga dhaqankaagi ka tagay nin walo maanta halkan ku dhoofay wuxuu koonaya 15 jir baan soo guursanaya caynkan oo halkaas tumashadii fawaaxishkii baa cirka maraya wadanka laakiin ku hadal meel kastoo Soomaali joogto 8 jir inaan yar la qaylay aad arkaysa ama markii runtii isu sheegayna deeyaan loo cabdigoodu waaleeyma waaleeyo wax de magaalooyinkeena yaala 8 jir daha 8 ku bilaabay xagee bay markaa da iyo weyni way baabacday odaygii baa iska xayuubiyay wixiiba garaad suldaan caaqil habeenkii suuqa maraya jira darajadaasina way luntay waa raggii waaweyn iyaga waxaan iska xayuubiyey iyaga hoos ugu soo noqday dee cimrigooda markaa ogow noloshii dhammayd collapsed bay gashay halkii ay ku dhammaanaysay baa la rabaa inay ka bilaabantay imika dambe ka bilaabaysaa halkii ku dhammaanaysay soo ka ku soo noqday halkii ka bilaabay after 8 years buu dib soo noqday ilmihii marka 20 jirka ah wax soo noqday baa arkay dad wax halkoodii taagan ma arko marka maxaa loo yaabaya inan baan inuu ka soo xidoonayo inuu shukaansado oo dee guursado markaas ay tir waan maanaadi doonaysa ha dhulka laalaab bay tir horena way noo sheegnay tan ay xigmadda halka laga doonayo ma ogtay ninkan ay eegaysaa ma ogtay saanto eegay wax ka weyn weydiiyay ma ay tir dhulka laalaab wuxuu yiri dhulka laalaabdiisu waa sahal buu ka dhaqaaqan laalaabe ka kac damir dhul bay ka kici kartaa saasaa la isu dooni jiray injineerka waxaan doonayaa inuu khadka telefoonada noo furo maadaama waxaan rabaa dadka billaahi calayk bal aynu maanta waxaan ugu talagalay qaybta intan dambe bal inaan aniguna war idinka qaadano haddaan israac Soomaaliga nahay tale iyo guubaabiyo wanaagba wixii aan nafaraysaan aan idinka qaadano fadlan soo hadla injineerkuna telefonkii way noo furay wali furin هذا مستندمين ومسنان نقول محمد الله تلفكو سوق لواي وبيسي وكاس يمك بو فريه بس وقرا قاوك هلك
ayaynu iska gelaynaa maladiinta teleefanadiina noo imanayaan ila haddaan anaguna aamusnay idina aamustaan waa mashaakil moogta qaabka hadalka loo sheego shan siyood baan maqli jiray inkastoo imika la badiyo kuwa kale soo dhacay teleefanadii imika hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum hallo uu ka go'ay qofkaas hallo waa maqlaysan injineerkii ugu go'ay kaasi way iska iman doonaan marka shan baan maqli jiray anigu loo sheego inkastoo imika la badiyey waxaynu ka digaynaa buwaagtan faraha badan lee had iyo jeer soo baxaysa inay akademiyad soo maraan ninku buugga doonaya soo saara buugga wax fiican oo soo saara laakiin cilmigaaga hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal waa xamdi axmed abdigood xamdi walaal xagaad ka soo hadlaysaa walaal london london walaal salaamu calaykum maxaad nagala qayb qaadaysaa talaabishka mala socotay kusoo dhawow ha walaal si fiican baan la socday abdigooda walaal aad iyo aad baan u jecelnahay programkaaga maasha allah laakiin walaal hal mid baan ku darsan lahaa because soomaali haddaynu nahay dadkeena waxaa haystaa afkooda iyo dhaqankooda kuma kalsoona waa run waa wada gaaliskayeel walaalo nacam shaarka waxaad arkaysaa caruur soomaaliya oo soomaali dhaleen oo kule ma aqaano af soomaaligii dee miyaanu aabihii hooyadii baan barin de walaalo dee dhaqankiibaa ku lumaya saa moogte absolutely marka walaal waxaan kugula talinaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay garabkaaga ha galo halkaa ka wada walaalo barnaamij alla yacisag xamdi walaal iyaaka malaa'igtu ha ku xafido walaal maanta walaalo jazaaka allahu khayr walaal hallo salaamu calaykum marka hallo salaamu calaykum hallo uu kaa go-ay qofkaasna aada iyo aad baan uga xumahay markaa waxaan maqli jiray shan siyoodoo loo sheego hadalka hallo salaamu calaykum salaamu calaykum hallo hallo salaamu calaykum calaykum asalaam cabdigood waa ku salaamaya saaxiib walaal magacaagii halkaad ka soo hadlaysa waa kaa qaaday waxaan ka soo hadlayaa london magaceygana waa cabdishideena la yidhaahdaa cabdirashiid khadka taleefonka igala soco walaalo maxaad nagala qayb qaadaysaa kusoo dhow barnaamijka waay aad iyo aad baan maaragtay iyo barnaamijkaaga uxiiseenaa runtiina waan jecel lahay waxaan rabnaa maaragtay inaad dadka waxaan fuxuustan wado dhaqan xumada inaad maaragtay aad si fiican maaragtay nooga celiso insha allahu tacaala keligii wax macli kale waynu iska wada celinaynaa waynu iskaashanaynaa aad iyo aad waan ku taageernahay waanu jecelnahay maaragtay inaan ku taageerno waxaa keliya igu taageertaan waxay tahay inantan isqaawisay iyo ninkan magaranaysaa meesha keenaya waxaa ka xun kan ka duubay t v-ga marka ogow mar kastoo daawataba isaga tiisi waad u fulayso oo lacag buu ku helayaa ma ogti inaan la daawaninun sax waayo mar kalood kilib garaysaba youtube-kiisa lacag baa ugu jirta aadna daawatay fawaaxishkii marka waxa fiican in laga jeesto imika adiga arkooda leeyahay bada imika tii ugu dambeysay ilaa caalamul islaam sacuudi arabiya iyo abudabayaba waxay kasoo saareen fadwo tii ugu dambeysay qaawanaantii xitaa dee ay joornaaladooda kusoo qoreen oo ilaa halkaasay soomaali maanta maraysa annagu kamaanaan hadalkana hadli mayno ummadaan u dayno waa tan ummadda niri dee warwadaadadiina meeye warda ummadayna maxaa leedin ummaddii baa iska qabatay marka waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ula yaabay cabdirashiidow maalin dhaweed ba waxaa la yidhi nin baa guddoomiye degmo loo dooranayay youtube-kan ka daawaday wuxuu keenay degmadiisii halkii yareed ee xaruntiibu wuxuu keenay dhowr iyo 20 hablood oo 20 jir gaadheen oo markaasaa muusig Maraykana sidii loo ciyaari lahaa baa la barayaa hablaha yar afka iyo wajigay soo duubteen goono yar yarna way xiran yihiin iyo tight muusig gaalna waa la barayaa oo kii Maraykanka ahaa waxaa loola yaabaya kuwa halkan jooga markaa wadankii bay taasi ka dhacaysaa waxaad arkaysaa aroosyada imika lagu qabto wadankii iyadoo dumarkii ragga halkan fadhiyaan oo inan iyo inana isku niikinayaan oo saa lacag lagu dul daadinaya waxaa loola yaabaya inay tan telefishinka magaranaysa ay ka keentay soo ku youtube iyo facebook ay ku yaalaan iyadoo inankii iyo inantii isku dhagan yihiin subxaanaka yaa cadim oo niikinayaan oo lacag lagu daadinayo dhaqan xumada wadankii bay fadhidaabe maxaa kuwan Yurub loola yaabaya ay Maraykanka joogaan
صوت التلفزيون قرن كلا ليه هي قرن كي قرن كلا السلام عليكم ليه laga daawanaya waxan halo السلام عليكم qofka uu ka go'ay marka maxaa loola yaabaya war wadankii bay waxaan jiraan yaan la oran Yurub baa lagu baabay war wallahi ka lagu baabay waa xaga marka runta deeyo isu sheegayno in been isku ku xasaawin meena halo السلام عليكم وعليكم السلام وانكم السلام عبدك walaal waan ka qaaday magacaaga halkaad ka soo hadlayso محمود بالي aan ka soo hadlayaa East Midland UK okay East Midland walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa waan kugu taageersanaa cabdigood waxaan ku weydiinaa bal culimada yani adiga culimada kugu taakuleeyaan arinkana wadid oo anshaxumada dadka waxa sameeynaayo kugu taakuleeyaan culimada maya deeniyo culimadu wuxuu bay ugu yiraahdaan kaanu saragnaaba jazaaka Allah khayr wax wanaagsan baad wadaa laakiin wali waxa ficiliyo oo igu taageeray male laakiin de halkooda iguba ka wadaan arrinka baan u maleynaya كل علماء وطن داروا باقة ودران كل يقوي هندي ومدتين ده وإذن مي ده ما قرنا يا إلهي بقول كل طلبات أسكت قرنا لكن إنه أنت إنه قايلين كروا قايلين إن ده سمع محمد وكجوعي إن مركا رونهانتي إن بلشدو حدي أنا كدي دين ده تاني واحد بدن باسوس على ummadda waan ka bareerayaa maanta xumaan ma taliyo qof bini aadan waan qaldami karaa bini aadan baan ahay laakiin wallaahi qofna ma dhibo karaamo uu leeyana kama qaado laakiin marka ilmihii aqalka loogu keeno dhaqan kale oo loo soo turjumay oo u baranayo dhaqankuna aanu dhaqankaagii ahayn maxaad ka rabtaa birteena kaasi noqdo hallo salaamu calaykum السلام هاي مقعاقي هلك اتصال بالسؤال الو هلو السلام عليكم ولا المقعاقي هلك اتصال ليسو والله waxaa la yiraahdaa maxamed axmed محمد حاجات joogtaa walaalo wala waxa jooga qadar السلام عليكم walaalo maxaad nagala qayb qaadanaysaa barnaamijka ma la socotay maxamed runtii cabdo aad baan ku salaamayaa barnaamijkaagu waa barnaamij aad u wanaagsan waanu kugu hambaleynayaa dhaqanka wanaagsan iyo asluubta bini aadanka waxa wanaagsan dad islaam hadeenu nahay ha walaal in wanaag la isfaro nacam marka waa kugu hambaleynayaa wax siyaada oo daan kugu dirinayaan ma jirta adigii waa boqorkii afka ma boqorkii afka wada leenahay marka walaal wax kale ma jiraan waxaan doonayaa in yar uun inaan ku naseexayo cabdo maadaama caalamka oo dhan laga daawanayo intaas oo milyan oo qof ay ku daawanayaan ha walaal jazaaka Allah khayr iwad runtii hana iga xanaaqin de cabdo walaal ilaahay dartiisaan ku jecel lahay ha walaal iwad marka walaal waxaan doonayaa inaan ku sheego ha walaal runtii intaas oo milyan baa ku daawanaya marka dhimka biyaha cabaysay bidixaad ku cabtay marka inaad dhaqanka wanaagsan iyadana aanu kaaga dayano aad ummadda tusid ayaan doonayaa inaan kuu sheego walaal jazaaka Allah khayr waa wax wanaagsan hay walaal marka walaal raallina iga ahaw dee hadday intaasi ay gardarro tahay ma waa wax wanaagsan baad ii sheegtay jazaaka Allah khayr walaal maxaan u diidayaa maba ogeyn bayna bidix ku cabayna mid ku cabo anigu idinka idin la hadlay waa anigan soo dhigtay midigtay ma ka jazaaka Allah khayr walaal aad baad u mahadsantahay ilaahay jaageed ha ku siiyo marmaraan islaawayna ay raali ahaado kowdhaha marka الو السلام عليكم والله واحد نقسم بيشيء نكاس جزاك الله خير السلام عليكم هلا والسلام عليكم ولاalo وعليكم السلام magacaaga halka ka soo hadlayso walaal saati cabdi walaal waa wanaagsan magacaaga halka ka soo hadlayso ii sheeg magacayga waxa la yiraahdaa Axmed baa la yiraahdaa Axmed xagaa joogtaa waxaan ka soo hadlayaa hays London walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa niyo horta laba arrin uma nuru lahayo diyaarin horta hawl fiican baad wadaa hadda Allah kula garab galay taas waa kow ma sha Allah dadna waa fariino de ummadan Soomaalida horta mid oranayaayo markay wax arkaan oo cabdigoodo oo mid ka soo oranaya kowde ha cabdi midba maalin dhaweeda ku yarba maalin dhaweed videos ka dib wuxuu yiri cabdigoodo wallahi hadii ku waalay dadkan buu yiri boogti kowde ha markuu arkay videogii naagtii qawleed buu cabdigoodo kon walaha adiga ku waalayaan buu yiri oo maxay iga waalayaan aniga
marka isagii waxay adiga ku waalayaan isagii baa ku waashay dadku xaggu ka baqan lahaa xaggu ka dhidhiin lahaa wallahi wani hada dadka culimadii ah dadkii ah xaggu odhan lahaa ayuu ku leeyahay cabdigood aday ku waalayaan cabdigood bay waxaan u sameynayaan cabdigood buu sameynayaan waa ninkan muu sameynayna daawatidu lacag sameeyo buu tala galay simple maad ka dayfiina wax kala xeerin maayo isagu walaa dadnimo walaa bilaadanimo walaa muslimnimo shilinkii baa halkaa galo dadka halkaa wada shaqeynaysa cidii xeerinayaan hablahoogaba mi soo dhigan maxay kilibka qaawane markaasay waliba leedahay cabdigoodow de horta mid waa talo oo hadaan Soomaali maanta anisan ka baraarugin tu ka xun baa imanaysa moogta waa sahalo inan shaar sidata waa sahalay tu ka xun baa soo socoto dadku hadayna gacmaha isqabsanayaan laga warhadan wallahi ilaahay baynu ka hoos galnay si waa adii kala shams iyo daahir taadi bay noqonaysaa moogta arinku ما إن شاء الله تعالى كل يمد دي حمانته وهذا أركي سايو ضد أنت وناكسن بابدنا هو اللي قصوا ده هرتشيدا وإسك قبلنا حمانته إن شاء الله تعالى إلهنا والله كشانينا إن كل أنت وناكسن بابدنا كبدنا لكن كبدي يوم بين سلنا هاي نقوم وقته إن بعد إن لبعضنا إن الرجال يسي إنه حل ده أهله بركة شنطة كل ما أنت تلفون هذا نقول ترى قال بلدكم وحنو شيء جيا وأنا لا شيء وأنا قاعد مديك تكعب بيني ما شاء الله هلا السلام عليكم. الو عليكم السلام. والله المقع عادي هلك تكسر الله يسوع. افرح بالليلة ولا. افرح حاجات شوكتها. لندن. هاي والله محاد والله أنا قال قيب قاعدين ساكوسو له برنامج كولان. والله أرنكان دقن حمدا واتيجي وتكون أكسنتها وحشي عن باشكتها إن وقتنايا بدك لو حنلي أبنا ودادتي الصومالية ماشي كبحين أي محل وقت حمدا كسرت محلها يوتيوب هذا هير وحب الجارة وأنا بلداون بقى وصدقن حمدا كسرت الميري راوانا كثير صدان ويداونيان marka walaalow ilaahay waxaan kaaga barshay inuu khayr badan ku siiyo amiin walaal fiican baa sheegtay amiin dhamaanteen ba walaal jazaaka allah khayr walaal adigana ilaahay wax wanaagsan ku siiyo walaal ilaahay ku xafido walaal allah yaxfiidak walaal aad iyo aad baad walaal ma hasan tahay war maanta waa badan yihiin taladu ma sha Allah laakiin dadkii waxay u badan yihiin wadaadadii maaye aqoonyahanadii islaamku maaye hay wax la waayay arrinkan حيو ضاونيا لأني ملا آيات ملا دليل بشيء أنا كهذا المياه قرن كم يجي ندينا يجي قوي إحنا كل عرض ما ينقد هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ما قاعد يهلك تكسر هذا ليس. هذا ما قصوا هذا يا واحد هذا فاضوا حواله. هاي فاضمة بالوطن. هذه دبار الله يوحي دولته قبل شرين. adduunku qaban jiray dhaqan xumada muslimiintu qabataan ayaa adigu qabatay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha ku sharfo adigana marka inta waxaan doonayaa in halkaaga kaga hayso waa lidii xasayd ee dabaalanaysa indhahayaga ku arkaysay ee gabadha soo qaawisay nacam labada yada indhood baan ku marka inta mid baan aad iyo aad ula yaabay inkoo ku yidhi biyaha cabid maya may weynala taliyay ninkaasi waxba magaraysa wuxuu buuri bidixdaad ku cabtay maya talaba biyaha cabid qofku markuu studio jooga uu ka talinayo wax raadi maayo biyihii yaraa ka barmaayo hay wuxuu weynala taliyay wuxuu bidixda ha ku kabanin buu yidhi midigta ku kaba waa la runtiisa moogta nagahana inta waxba aad uga maqlo qof weyn baan ahay halkaa inta kaga hay oo dhaqan xumada inaga jooji oo wadankeennii waxa lagu cunayeed sheegaysay waan qayrooday markaas yiri burca koonfalagis lagu cunaa hay koonfalagis wada dhacayo dhaydka hindidu dhaydka ugu samayso hindi baa joogta dhaydka samayso oo ma gasbayr ba waxaan la cunaa gasbayr weeyaan waxay markaasay ku wada odhanayaan koonfalagis baan ku quraacanayna koonfalagis xaggay ku yaqaaneen anigayga jooga carrada ingiriiska 25 sanadood baan jooga weli koonfalagis afkayga ma saarin koonfalagis
ما شاء الله. كان كلام بوشيكا كان كلام واحد يقول عرورته مركز سيديان والبوشيكا يقطع بوشيكا هاي واحد كان يقول شيء عم بطل بيجي يلا يلا واحد نوع عاسة هاي والله جا ودن كأني لما قلنا نقل حمد إنه بهر شوق راعي خير كنت يا هالجا تاجنت هاي ان شاء الله إيه قال الله هذا يريو ان شاء الله تعالى هو امين بقيت كي نقبه بطل بقيت كي نقبه والله عاسة قولي نقبه إن شاء الله. إنه وعي يده ان شاء الله تعالى ما وقبل ان شاء الله تعالى وحنا نسقل كروس قبلنا يا عمري يا الله هذا يريو ان شاء الله امين ادينا الهي ku xafido ان شاء الله تعالى khadkii ugu dambeeyay baynu qaadanaa imika injineerku wuxuu leeyahay 5 daqiiqadood baynu haray bal 5 daqiiqadood baynu eegi doonaa intii la gaadho halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum halo uu ka go'ay qofka miya tolo halo uu ka go'ay waxaynu eegi doonaa bal kaasaynu eegi doonaa haddii alla yidhaahdo halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وحال ده هوي صوماليات haye xaggaad joogtaa waxaan joogaa magaalada London cabdigood waxaan ku leeyahay meesha ka wadid sheekada ka wad heesaha Soomaaliya oo iska dhigeysan jiray micnood ma san aqoon hadda waa noo sharaxday saakum la qeer ilaaha ku sii hoose amba wada ilmeena xataa micnihi wixii anagoo hadda ka yahay xiseenoono ilmihi xataa markay fiirsanaysan tahay maxaan dareena si kale marka waxaan ku leenahay cabdigoodo ilaaha qeer ku siiyo halkaada ka wad waana ku taageersanahay saas baan ku leeyahay guuleyso weliga ilaahay ku xafido jazaak allah khayr hooyo Soomaaliyeed aad iyo aad baan ku salaamayaa waynu geli doonaa kulley qaadigi idin sheegayo kulley maalin walba waxun baa inaga dhidmo moogta maanta telefoonada iyo bal hadda dadka iyo 7 kaliya 8 kaliya nu qaaday maanta telefoonada haddana waad arkay saacada way iska soo gabagabo waxaynu geli doonaa bal hadda qaabka hadalka waxaynu geli doonaa sheekooyinkii magaranaysa xikmadda laha ama la isugu jirabayay waxaynu geli doonaa waxyaabo fara badan oo jira waxa kulley kameynaan tagin inuu dhaqan xumo iska qabano kameynaan tagin hees qaldan maaha anshax xumo kaliya wixii aan hees ahayn sida kuwa nimanka aynu idiin sheegaynay ee in 8 iyo 9 kala wada ordiyay laftooda inaynu iska qabano waa halka ay anshax xumadana wixii ay timi waa markii 9 iyo 8 la hirgeliyay baa anshax xumadana timi laakiin maansidu siday ahaan jirtay hadii loo raacayo ceeb may lahaan jirin dee daahir yaa shamistee may ahaan jirin subxaanaka ya cadiim waxay ahaan jirtay maansi habdhici ninaan heesba aqoonin baa doonaya inuu isdhaahdo ku soo cabax war magaciibaa meeshan masiibo noqday magaca ilaahay baa bixiyo samada laga bixiyo dee lama doono raginimada looma faarumaysto lama doono dee bal waxaa kala saartaan mangad iyo mangaad mangal iyo mangaal mangur iyo manguur mangab iyo mangaab bal 8daas oo kala saara waxaan idinkaga tegayaa dhammaanteenba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kadaba iyo kulan xiisa leh